السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسودة هذا خيارته شنكيني وحلبة كريبتو ولكن محمد جامع إن شاء الله تعالى waxaan doonayaa taxana inaan sameeyo oo aan ku sharxo financial systemka iyo waxyaabahan maanta aynu isticmaalno haday tahay forex-ka iyo cryptocurrency qaabkii u asaasmeen halkii laga soo bilaabay taariikhahaas oo dhan inagoo taariikhaha dib u raacayna ilaa 16th century wax ka badan 400 oo sanadood taasoo aynu ku eegno nidaamka maaliga caalamka qaabkii u asaasmay aba u samaysmay waxaad aragtaan inaan muraayada xidhanahay muraayadahan waxay ugu kalifay saraxatan anoo sameynaya research badan oo doonaya inaan nii soo gudbiyo maaragtay macluumaad aad iyo aad u qiimo badan saad u fahantaan ininka dadka maaragtay ku jira caalamkan iqtisaadka ah haday tahay forex stock marketka iyo cryptocurrency ba iyo akhyaarta kale aan fahansanayn caalamkan financial world ka qaabku u asaasmay iyo qaabku u socdo iyo meesha laga filan karo mustaqbalka inuu gaaro waxyaabo fara badan aad ka heli doontaan insha Allah channelka soo dhawaada khayarta mar labaad inuu soo laabanay mustalaxan aynu mar walba aynu maqalno khaasatan marka laga hadlayo stock marketka iyo forex-ka inta badan la isticmaalo bal yiraahdo qolada u dhaxmara oo u sii isticmaala si aad suuqa aad u gashid oo aad uga faa'iidaystid mustalaxana hadda jeer waxaynu naqaanaa broker amba brokers taariikhdiisii haddii dib loo raaco waxay ka bilaabmatay waddanka Faransiiska qarnigii 11aad waxa jiray rag maaragtay ganacsata ah oo iyagu systemka brokerska soo saaray sida imika aynu naqaano maanta qolooyinkaasina waxay u dhaxeeyeen baanka Faransiiska iyo dadka ka ganacsanaya qitaaca waxbeerista marka halka waxay u hayeen iyagu middlemanka amba qofka dhexe ee labada taraf u dhaxeeya labada qolana commission bay ka qaadan jireen sida imika traditional worldka amba caalamka imika aynu joogno finance-ka ah sida uu hadii jeer brokerku labada dhinacba uu lacag marka systemka brokerka iyo qaabka uu ku soo baxay iyo dawladii ugu horeysay iyo qarnigii uu soo baxayba Faransiiska uu horeeyay magaceedana waxa la yiraahdaa hadan isku dayo inaan saxo courtier de change ayaa loo dhan jiray insha Allah waxa rajaynayaa inaan magaca si wanaagsan u sheego taxanaheena hadaynu sii wadano iyo magaalooyinka amba dawladaha caalamka ugu horeeyay ee laga sameeyo mustalaxyada fara badan ee financial world-ka aan ku aragno goobtii ugu horeysay ee qaybtan la yiraahdo securities-ka ba amniga ee dawladuhu ay bixiyaan halkaasoo waraaqo maaragtay ay kala qoraan oo dadka iyo dawladda u dhaxaysa tusaale midlan dadka ay amaahanaya lacag dawladda waraaqo u qorayaan oo daliil u ahaanaya dadka inay maaragtay ay dawladda ay lacag ku leeyihiin amba ay lacag amaahiyeen mustaqbalkana dawladda ay lacagtoodii u soo celinaysa iyadoo faa'iidadii ay ugu ballan qaadeen u dul saaraysa waliba marka qaybta security-ga iyo amniga waxa ugu horeysay magaalada Venice ee waddanka Talyaaniga qarnigii 13aad 1531 exchange-kii ugu horeeyay ayaa laga sameeyay waddanka Belgium khaasatan magaalada Antwerp ka hor intaan exchange-ka la sameyn family-ga ugu weyn waddanka oo la yiraahdo magacooda Van der Beurs ayaa iyagu wax walba oo ku saabsan maartay dhinaca dawladda haday tahay businessyada haday tahay lacagaha lagu leeyahay dadka iyo baanaka iyo waxaas oo dhan iyaga maamuli jiray intaanay sameyn stock marketka Belgian amba stock marketkii caalamka ugu horeeyay dabcan sida qof walba oo wax asaasa magacooda ayaa loogu daray stock marketka lamida waxa loo dhan jiray bourses amba boursa sida carabtu ay imika u taqaan suuqyo far badan oo wadamada carabka ay leeyihiin amba stock marketkooda lagu yiraahdo boursa halka ay mustalaxaas ka yimi amba magacaas stock marketka lagu magacaabo